السلام عليكم كسور دوادا كنال كعبد العزيز فورلي maanta waxaynu ka hadli doonaa Nancy Wake oo lagu magacaabi jiray ama lagu naanaysi jiray jiirkii caddaa marka laga soo tago inay siyaabo badan taariikhda baal dahab ah uga gashay Nancy Wake waxaa si gaar ah loogu xasuustaa inay ahayd dagaalyahanad cajiib ah inay aad khamriga u cabi jirtay iyo inay ahayd qof aad u nacab cadowna ku ah naasigii Jarmalka waxa ay ku dhalatay New Zealand laakiin waxa ay ku barbaartay Australia waxa ay iskuulka ka carartay iyada oo 16 jir ah waxayna shaqo wariyanimo ah ka heshay Faransiiska waxaa la soo tabiyay inay been ka sheegtay xirfadeeda si loogu fasaxo inay ku biirto koox wax ka qoraysay taariikhdii hore ee Masar halkaas waxa ay kula kulantay kuna guursatay nin warshado ku lahaa Faransiiska oo lagu magacaabi jiray Henry Fioca kaasoo ay kula nooleed magaalada Marseille xilligii ay naasiyiintu xoog ku galeen Faransiiska sanadkii 1939 Nancy Wake waxa ay durbadiiba ku biirtay ciidamadii iska caabinta ee Faransiiska waxayna hagtay ciidamo xulafo la ahaa oo u baxsaday dhinaca Spain markii kooxdii ay ka garab dagaalamaysay la fashiliyay waxay u baxsatay wadanka Ingiriiska iyadoo sii martay Spain Fioca oo ah ninkii qabay Nazi halkiisii kama uusan tagin waana la qabtay oo la jirdilay ugu dambeyntiina waxaa dilay ciidamadii Naasiga Nancy Wake waxay dib ugu laabatay iyadoo la shaqeynaysa laantii sirdoonka ee Ingiriiska waxay ka qayb qaadatay hawlgalo badan oo halis weyn lahaa waxayna sheegtay in iyadoo aan wax xub ah wadanin gacanteeda ay ku dishay nin ka mid ah askartii Jarmalka waxaana hadalkeedii ka mid ahaa xarunta sirdoonka waxaa la nagu tababari jiray tababaro hub la'aan in lagu dagaalami kara ah anigana waan ku faa'iiday tababarka laakiin halkaas mar oo kaliya ayaan isticmaalay kow ayaan kaga siiyay ninkaas hadalkaas ayaa ay tiri mar ay telefishan waraysi siinaysay 1990meeyadii ugu dambeyntii Nancy Wake waxay abaalmarino badan ka heshay markii uu dhamaaday dagaalku magaalada London ayaa iyada oo 98 jir ah ay ku geeriyootay 7 bishii August ee sanadkii 2011 waxaana ay codsatay in meydkeeda lagu aaso wadanka Faransiiska inta ayaynu ku soo koobi doonaa mawduuceena maanta oo aynu kaga hadlaynay Nancy Wake oo loogu naanaysi jiray jiirkii caddaa